السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن دمان مدنياشا iyo marwooyinka sharafta leh ee caawa halkan isugu yimid dhammaantiinba waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah ee aad u soo hurteen inaad u timaadaan caawa isla markaasina aad gacan ka geysataan qayladhaanta aan u sameynayno maxamed cabdullaahi aadan tiicay madaxweynihii hore ee ximan iyo xeeb isla markaasina ahaa wiil Soomaaliyeed wiil Mareykan ah oo ka tirsanaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan muddo dheerna magaaladan deganaa kadibna u guntaday inuu dalkiisa iyo dadkiisii wax taro oo aad la socotaan xaaladiisu siday hadda tahay isla markaasina si xaq darra ugu xiran wadanka Belgium barnaamijka aan idinku casuumayna nagala soo qayb gashaana waxa uu yahay inaan ninka walaalkeena u qaylo dhaamino isla markaasina aan taageero hiil iyo hoobala aan u muujino waxaan la jooga ilaahay jifra badan ha siiyo waqtigiisa qaaliga oo noo soo horay Sheekh Axmed Taajir oo ah culimada ugu waaweyn ee gobolka Minnesota iyo dabcan culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu magac dheer ugu cilmiga badan sheekhu muddo fara badan ayuu kamid ahaa dadkii Maxamed Aadan Tiicay yaqaanay isagaana dabcan noogu tabarucay aqoontu ninka uu leeyahay dartiina barnaamijka nagala soo qayb qaato marka Sheekh Axmed ayaan ku soo dhaweynaa la soo dhaweeyaa Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka ummatul islaam Sheekh Axmed Taajir soo dhaw الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الكرام البررة الميامين ومن تبعهم ونهج نهجهم واستنى سنتهم إلى يوم الدين وبعد لمانتين أخيارتن كلا دوان مرويك يا مدنيا شهر مينيسوتا صوماليا كلا دوان وقبل مينيسوتا عاوة ككلا يمد لمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى سيدا ورالك المسعد وشيغي المناسبة عاوة ينسون من وحاويان قف ولالكين وهير مينيسوتا صومالي مسلم ومريكانا قضية دي سيبان قرأت تاقان هي ونسون مدي انت انا اسيق بالنصوص تاما آياتها قرآن موضوعات المعنى عدالة دكو سابسا وحان وصعون لعمانا بالهي ولكن عاوة أرنتيسا إن أنقرب استاغران سوون نمد محمد عبد الله آدم تيعي وأبا الصوماليين وعرور تيسي غير كيسا كورسوي حنانية ساكا ورقبرون وموادين صومالية ومريكان وهي مينيسوتا انتي قولك مينيسوتا وجوغي أن قيمي هادتك كفكر الجري بلشدة باهية إلى قيمها كلا دوان محمد آدم تيعي markii wadankii hooyo oo ku laabtay waxaan la soconay inuu nabadaynta iyo horumarinta wadankii qayb liba xale uu ka qaadan jiray محمد آدم تيعي markii ugu dambeysay oo aan kulanay waxaan ku kulanay masaajidka ummatul islaam maalin jumcada salaad ku tukanay marka shakhsi wuxuu ahaa reer Minnesota markuu meesha joogan ahaa qof waxa qabado kartile bulshada ka dhex muuqda markuu wadankii ku laabtayna ahaa dadkii ku talagalay in wadankii ay dajiyaan horumar u raadiyaan haddaba qofka noocaas oo kale ah maadaama uu yahay qof reer Minnesota ah inaynu garab istaagano oo aynu qadiyadiisa garab aan siino si uu cadaalad u helo waa laga maarmaan islaam ahaan iyo adduunkaba waxaan ognahay qofka bini'aadamku wuxuu dhashaa isagoo beri ah asal ahaan
insaanku markuu dhashay waa beri dembi ma qabo intaa ka baxsan qofkii sheegay isagaa laga rabaa duruuf iyo burhaan inuu keeno caalamkanaynu ku noolahay qaybihiisa kala duwan alla abuure cadaalad buu ku socdaa kulligiis meel kasta oo fiiriso kor iyo hoos wax muuqda iyo wax qarsoon soo quraanku tilmaamaya kulliga cadaalad buu ilaahay ku jaangooyay cadaalad la'aanta wax soconaya ma jiro ilaah baa nabarayaan الله جل وعلا قرآنك دور سيدين يلاباتن جير بو لفظ عدالة كذا هضلي أنكو الرئيسي عايده الرئيسي مرة من مقاشان صلاة الجمعة مركز لما يا وداده وعد ويكسر قناندان الله جل وعلا ويسجلها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى للعكل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون معناها هي إلهي خالق الكون وحؤل أمر يا وأمر ما وحو قفك لقهر وأمر إلهي فري إلهي برالم كاموري وحو برالم كفريان عدالة يا سنان إحساني يا سنفل iyo dadka taagta daaran hadba bulshada in la garab siiyo oo gacan siiyo ka soo bilow dadka xanuunsan waayeelada ciyaalkii agoontii qof kasta noocaasa dhinaca kale islaayada aakhirkeeda Allah wuxuu leeyahay Allah wuxuu idinka reebayaa idinka hortaagan yahay wax kastoo la yaqaan fuxshi ama munkar aqliga iyo diinta iyo dhaqanka biraamku oo galayn iyo wal baghi dulmiga aan cadaalad darrada يعظكم إلهي تاسو يكوان لعلكم تذكرون وآيات والله قد لعب عدالة قيمها للهي الله جل وعلا آياتك لو حصورتك لكل هاي الصغر النبي صلى الله عليه وسلم يقف كستو بلادنا وحر أمام الهيا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل markaad xugun iyo go'aan ama hawl haysaan ilaahay wuxuu idin farayaa cadaalad iyo sinaan iyo garsoor waa ilaaha kownka abuuray sidaas baa tawraad ku tiilay nabi muuse saas baa injiil ku tiilay nabi ciise saasaa qur-aankeena ku taalla khaaliqul kown baa biladan ka saafarayaan markii xugum la qaadayo in xugumka cadaalad lagu sameeyo qof aan dhib loo geysanin مذهب الله إيه دين إيه إسر إيه جنسي وهكذا الرب سبحانه وتعالى وله آيات كذا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى مركا هذا الإنسان قفكوا أما قرصور يا محكمتها جو مخراتها هذا أما قضيتك لها الدفاع أيوه إنه هذا الكيس عدالة هذا وقيب كمذا قالوك الربانية وبشرك الله فرج وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى قف كان قرابة ششايا واسكبيت بنت يعني ما تقانح قف كستو بلادنا عدالة ماشي مرتي دينتو مريسا قف كان هو من أبكي أما هو دينتي وإستركي إلهي ما عدالة كالرعية كواس وكلمة عدالة آيات كجران وحكى الله ماذا لفظ قسطي أما قسطاس وعدالة وقابك الله كعبريون لفظ قسطي أما قسطاس وقارنها والإرع عالمي وقارنها والجستس وكله وكلمة دون كتحيسا عربي وقسطي أما قسطاس جستس عدالة الله جل وعلا ويسجلها السبع تضيع لواتن جر القرآن كيس كل شيء إرع السبع وعدالة دي نحر كلحم بارسن أما الفات كله الله يقول هي وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. السلام عليكم. مدنيال مروين مرتي شرفت ما أنت شوكتو وحنا نقول دورتين عن خطبة دي أف صومالي كهالدون إن شاء الله مكيد القاطع محل ده هرتا anigu waxaan ahay gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis waxaana kamid ahay 13 qof oo maamusha magaalada Minneapolis maantana maana u imaan inaan ka hadlo magaalada Minneapolis
ama aan ka hadlo xilka aan hayo ama muhiimadda xilka aan hayo uu leeyahay ama inaan u hadlo xataa inaan ahay nin mas-uul ah oo Maraykan ah maanta waxa uu imid horta yaa ka yimid ximan iyo xeeb oo meeshaan joogo gacanta taaga ximan iyo xeeb waa joogtay Soomaaliyana waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu inaan ka mid ahay ximan iyo xeeb oo ahay qof deegaankaas isku tiriyo waxaa aniga i koriyey nin la dhaho Maxamed Maxamuud Guuleed Gacma Dheere oo reer ximan iyo xeeb ah waxaana taariikhda hadda walaashay Shamso Abtidoon Maxamed waxaa ka dhageystay Ilyas oo asnaabta ahaa dadkii maxaa la meeshaan igu soo maartay marti qaaday Ilyas Maaco Muqdisho Times baa ka daawaday interview ay samaysay waxa cajiib ahayd in maanta dhibaatada reeticay ilmihiisa iyo xaaskiisa ay marayaan in aniga iyo qoyskayga aan soo marnay annagoo 6 cunug ah ba odageena Maxamed Gacma Dheere la xiray oo dawladdii militariga ay xirtay waxaa markaas joognay bilo maybe hal bil mise 2 bilood baa waxaa joognay London waa 6 cunug baan nahay iyo hooyo Soomaali kaligeed hooyada waxay aaday Amnesty International waxay ka hadashay BBC da odagayga hal iisoo daayo waa xaq darro ku xiran yahay dib dheer bay soo martay marka waxa jira marka 9 sano 10 sano waa xasuustaa culayska uu leeyahay in odaga laga xiro culayska uu leeyahay meel aad ka dacwo karin oo aad lawyer qabsan karin oo aysan jirin waxa la dhaho due process oo dib badan marka waa soo maray marka halkaas fadhiyay maanta oo dadkay ka hadlaayeen dad badan waxa dhici karta inay ka hadlaayaan waxay soo maray laakiin anigu waa soo maray anako qurbaha joogno Ingiriiska degan odagayna la ka xiray meel fog ku xiran yahay Muqdisho ku xiran yahay maxaa la dhaw waxba aan laga qaban karin ciil iyo culays badan ku saaran yahay marka maanta taas baan u imid in la wadaago walaashay Shamsa Abtidoon waxaana u rajaynaa insha Allah in odageeda walaalkeen oo reer Minnesota ah oo hogaamiyihii koowaad oo ximan iyo xeeb ah oo haddeer naloo fasiray waxyaalaha badan uu qabtay intaas iskuuladii la dhisay isbitaaladii la sameeyey in qofkaas oo kale qof qaaliya in haddii xataa uu qalad galay in cadaaladda la soo marsiiyo waxaa jirto maxaa la dhahaa juub waxa la dhaho dalkan innocent until proven guilty qofku waxa weeye dambiile ma ahan ilaa dambi lagu soo oogo ninkan waa nin Maraykan ah wuxuu ka dhashay dalka adduunka hadda citizen haysa ilmihiisana ku dhasheen dalka adduunka ugu xoog badan marka taas weeye waxaan u baahanahay waa in asaga loola dhaqmaa sida ninka cadaanka oo Maraykanka loola dhaqmaa waa inuu leeyahay xaqa ninka cadaanka ama ninka jinsiyadaha kale oo Maraykanka xaq ay leeyihiin because asba Maraykan buu yahay anigu marka codkayga ku soo biirinaa insha Allah in walaalkeen la soo daayo oo maxaa la dhahaa walaasheen Shamso iyo ilmahan culayskan hadeer saaran Ilaahay ka qaado waan in loo duceeyaa intii la yirina intii la dhihi lahaana waa la yiri waan ugu hadeer wax xikmad kale iyo wax kale kuma soo dari kari laakiin waxa rabay anoo ah mas'uul magaaladana mas'uulka ahna qofka kaliya maanta Soomaaliya oo xil intaas la eg hayo inaan codkayga ku soo biiriyo oo walaalkay waqtigeena soo qabto waxa kaloo jirtana horta ma loo waxa loo baahan ficil baa loo baahan yahay anaga dad Soomaalidahay waxaan nahay dad karti badan oo dadaal badan oo reactionary laakiin noqona laakiin maanta ficil baa loo baahan yahay petition kaas hal saxiixo waxaana walaashay ku soo dhaweynaya haday magaalada Minneapolis noo timaado oo reer Minneapolis baa u badan baa u maleynaa Soomaalida hadda gobolkan degan reer Minneapolis waa inay kaalintooda qaataan kaalin libaax leh ka qaataan in yarkan walaalkeena la soo daayo marka petitionka hal saxiixo qof kastana meesha degan tahay waa representative kaaga waana soo dhaweynaya Karen Clark oo hadda farxiyo ma aragtay waraaqdeeda akhrisay kuwa kale badanna waa jiraan kuwa kale badan baa jiro marka waa hatta wafdi ha loo diray capitalka albaabada ha lagu garaaco maxaa la dadka annaka aan dooranay ama na matalo oo state level ka ah Keith Ellison hal waco maantana waxay idin laasna lagu soo dhaweeyay inta ama qof loo maartu soo diro marka wax kasto aan sameey karno waa inaan sameeynaa aniguna codkayga waa ku boorinaya
qof kasta oo aan arko mas-uulahne cityga jooga ama stateka jooga waa la hadli doonaa wax weynna maahan inaan wacno oo waraaqna loo qoro laakiin waa inaan culayska badinaa waana in safaaradda maxaa la Belgium lala hadlaa oo safaarad bay ku leeyihiin Washington Jibril baa wuxuu dhahay hadda tigidhiya gooynayna meel baan u soconaa laakiin Washington DC aad meel fog maahan maxaa la safaaradoodan albaabka lagu garaaco hana loo sheego nin hogaamiyaha la xiray waxa lagu xirana ma naqaano charge-na ma lagu soo charge gareyn dambi lagu soo ogo ma jirto marka taasna ma loo dulqaadan karo 4 qof inuu iska xiran yahay uu xabsi iskaga jiro marka waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin hal waxa rabana ku daro maxaa la ximan iyo xeeb ha noolaato wuxuu ahaa maalmaha kamida markii uu Soomaaliya u noqday uu soo noqday Oxford College waxa loogu dhigay alashaan welcome back aan la kulanay alashaan anagoo dad badan saano kala xaflada markuu presentationkii dhameeyay wuxuu soo qabtay wixii dhan dhalinyarada meesha kamid aheeda waxay weydiin su'aal saan ku caawinaa markuu wuxuu yiri alashaan waliye mihilma ama kelmadaas والله dad badanna dhalinyaro badanna aan u sheegay alashaan waxay ahayd waxa qof kasto bini aadana especially qofka markuu muddo meelahan joogo arko wadamada kale waxa ay dadka wax qabsadaan waxay u sameystaan runtii ana hadda marka meelaha travel gareynayo to be honest aada uga masayra kana joogno wadankan ama wadan kasto maray iraahda dadkan waxba qabsadeen way dadkeen maxaa wax u qabsan laanahay way aan qabiil iyo qashin u wadana package kan 20 years nagu sii socdaan above runtii ma taqaanay marka kelmadii uu habeenkii yiri walaahi igama bixin maskaxdeeda wuxuu yiri waa isnaqaanaa yiri dadkiina meesha fadhiyo dhan qof walba ana wuxuu yiri Hargeysa ku dhashay aabeen xamar ku dhashay laakiin magaalada aan aadu dhahay awowgeeya ku dhasho dhahay wuxuu yiraahdaa magaalo kala tagi la waxa la dhihi lahayo dhahay warkan muxuu ahaa yuu ahaa oo reer ku ahaa oo meeshu ka yimaado wax u qabto uu tago markuu anaga nala soo aaday laakiin marka meeshaas tagu dhahay oo kan yaa dhalay ina hebel baa dhalay markuu wuxuu yiri diwal iyo backfall iga sameey then at least wuxuu yiri fikradeena iyo aqligeena iyo experience-ga aan waxaysanaa dadkii ula tagnaa wax ugu qabanay qof walba waxaan dhacdo dhahay iyadoo intaas koox ka jirto inay miis isla soo fariistaan ay dadkii alashaan ay qoriyay inta meel dhigta isla waxayaan dhahan nabadii uu dareensiiyay waxa qiimaha wadanimo waxa ay tahay in la yiraahdo this is your country meeshan ada iskala aditee kargarayso qofka inuu fahmo adaa leh adiga waxaaga dhaqaalayso ilaalayso markuu wuxuu yiri each and every one of you waa ogahay meel kala waxa ka wada timaadeen gobol kala duwan ka timaadeen awoorin gobolku ka yimid ku noqdo dhahay and then grassroots ka bilaabay shaqada waxa ma taqaanaa in dad waxba ka bedelaysin nolosha dadka taabanaysin marka runtii wallahi ilaahi subhanahu wa ta'ala bariyana u duceeyno ducaa u qaa'ib mustajaab waa walaalkeen in ilaahi dadka xaq darada ku haysto uu ka soo saaro aan u duceeyno ducadeena alashan salaad markaan tukanayna aan kala bakhaylin qofku walaalka ducada lagalama bakhaylaa dhahay marka qof alashan subhanallah wuxuu ahaa dedicated noloshan aan dhalanteedka aan haysano ka cararay oo sacrifice u sameeyay inuu dadkiisi wax u qabto aan maanta alxamdulillah ajarku bilaabo waxa leeyahay qof kasto khayr bilaabo khayrkaas ajarkiisa haduu dhinto xitaa u soconaa marka taasna waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo aan leenahay walaalkeen aan u duceeyno ducadii aan kala bakhaylin runtii aanay aad ugu dheeriyay qof shaqadaas oo dhan dadkiisa u qabtay waa marka each and every one of us waa sameyn karnaa marka jazakumullah khayr jazaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ugu bartay inaan luqadda maayga ku hadlo ma fahmaysin hadhawaada haddaan wax yar ka taabto horta muhiimadda waa in walaalkeena tii ay magaciisa u wada jeediin free laga dhigo oo loo yimaado magaalada Minneapolis uu ka mid yahay qaybtan community-ga oo quruxda badan oo meesha wada fadhiya in dantaga kale aan qabanayno qayb ka noqdo
qof anagoo dhan safraan wada aadnaa muhiimadda aniga personally haddaan ka hadlo waxa waaye qof kastoo walaal ah meel uu qabsado haddaan ka aamusno aan idhaahno isaga iyo nasiibkiis bari adigaa ku hadlaaya intiinaan yaa u hadlaaya aniga yaa ii hadlaaya idina waa aan logeyn wax lagu haystana aanan caddayn sidaas darteed waxaa muhiim ah inaan isla fahanno in walaalkeena la caddeeyo wixii lagu haysto oo loo sheego sababta loo haysto haddii waxba uga haysanna loo soo daayo haddii kalena loo caddeeyo taas waxay ku suurtagelaysaa inaan gacmaha isqabsanno aan anagoo dhan aan ka hadalno oo aan u sheegno elected officials waxaa dhahdaanba in senatorada lala hadlo la waco telefoonadooda waxaa jira petition oo waraaqaha xagga hadda dadka qaarkood magacyadooda ku buuxiyey telefoonadooda laga heli karo oo adressyadana ay jiraan la waco embassy-ga oo Belgium-ka sidoo kale telefoonkooda meesha uu ku qoran yahay emailka la diro petition-ka laga qayb qaato iyo sidoo kale listiga dadka local officials aan doornayna aan u sheegno dhibaatadan hadday la socdaanna lagu adkeeyo inay wax ka qabtaan haddaynan la soconinna la sii sheego anagoo dhan mas-uuliyad na wada saaran waa inaan qayb ka noqono intaas waa isla ognahay dad walaalo badanaa ka hadli doona sheekh wax badan uu nooga taabtay diiniyan iyo dhinac kastaba barnaamijkan walaalkay mascada noo sii wadi doono oo asaga noo sii xiriirinayo guddi ahaan waxaan rabaa guddiga dhammaantiis inaan u mahad celiyo shaqo fiican bay soo qabteen keliya guddiga ma ahane dadka walaalaha oo qabowgan oo zaydka jiro kasoo qayb galayna waa u mahad celinaynaa anoo ku hadlayo magaca guddiga waxaan leeyahay meeshaan aan ka muujino inaan walaalkeena si xaqdaraa lagu haysto haddii wax cadna loo sheegayo sida igu maqaala aniga qalad bay noqon kartaa 13 jeer u maraya in la geeyo maxkamad ana waxna lagu soo sheegin wax loo dulqaadan kara maaha shakhsiyan aniga ma dulqaadan karo idinkana waa ila mid marka maanta aan meeshan ka cadayno intaas waxa anagoo dhan yeeli karin cid kastana yeeli karin indaa maar aniga kaliya ma ahan marka intaas aan rabaa inaan idin la sheegareeyo on behalf of guddiga wixii intaan ka harayna ballaan wada dhageysano walaalaheena waxayna la qaybsanayaan iyo walaalkeena fariintaan u dirayno iyo inaan garabkiisa nahay mar kastaba assalaamu calaykum dhaweysaan sida ay saaxiibka dhow yihiin tiicayna ayadaa sharaxaysa Zahro soo dhow Assalamu alaikum. My name is Sarah Noor and I am here today to honor my dear friend Mohammed Aden Ti'i by telling you a little bit about him as a friend, as a father, and as a husband. And there are other ways that you guys may know him. I think he's the ultimate Bezani too. So, and I really thank you all for being here. And I also wanted to thank Mas'ad Goodbye and Ali Shameh for organizing this event. Ti'i and I met back in 2000 when he lived here in Minneapolis with his family. He lived in the same apartment complex as my aunt, and we used to run to each other a lot. And our first conversations really started with him talking to me about his background, his upbringing, where he came from, his neighborhoods, or us talking about our neighborhoods in Mogadishu. As most of you know, Ti'i is from Urdigle, and I'm from Hodan and Suq Sigale, and realizing that he also was from Hodan and Suq Sigale. So we talked about our families, just like any other two Somalis meeting. We talked about our education, and we really hit it off. So a few years later, we reconnected when I started graduate school at the University of Minnesota. And he was a student at Mankato, and he invited me to join him and several other student leaders to form what was called a Vision and Voices Committee of the Minnesota Somali Student Union. It was a student organization that was at the time really active in Minnesota and really organizing and mobilizing the community around, making Somalia a better place. I was an overworked mom and a graduate student,
and I could barely keep up with my studies and my home life. So I really did not want to be volunteering for some other projects. But I said yes partially because I believed in TA, and his enthusiasm and passion for Better Somalia was really contagious. He had big goals. He had a great desire to make a difference. And anybody who spent some time with him at that time could feel it. It was really palpable. And one thing I want to say about that committee that we were part of, Abdurrahman Ainti was also part of that committee, and he, as you know, he's the head of Heritage Institute, and some other aspiring leaders that are also here today, and great political minds. And I always joke that I'm probably, and still am and was at the time, the underachiever or slacker in that group. It was during that time that I really got to know the real TA. He was very funny, he was caring, and he was very kind. He was also a great storyteller, and someone that had really a way of making people really comfortable around him. Whether you're a man, woman, old, young, he was very trusting of people. He saw the best in people, and he was really confident in himself, but he wasn't really cocky. And that was really something that I really respected about him. The other thing that I really got to know is how much he adored his wife, Shamso, and how much he loved his children. At the time, he was in Mankato going to school, and his family was in the metro area. And he talked a lot about that. And that's something that, love of family is something that we also had in common. When his wife had a baby during our time together, he invited us over to his house for dinner. And I just remember Shamsa being really a generous host, and just really feeling like they really loved each other, and you could tell that that household was full of love. You know, as a committee, we formed strong friendships. We debated a lot, he and I. We fought about issues. We laughed. We teased each other. And most importantly, we bonded. The TA I know is not just a politician, but a caring and a loyal friend. He's very down to earth, and he always puts people before politics or any other work that he does. He's also, as I mentioned earlier, a devoted father, and I can't stress that enough, and a very loving husband. Since our committee work in 2005, TA has moved on to leadership positions, most prominently as the head of the Himan and Heb region. But he and I never really discussed about politics as much as we discussed about each other and our families and our hopes. And I really enjoyed keeping up with him via Facebook and occasional messages that we would send to each other. Whenever I ran into him, our greetings always started with asking each other how we were doing, talking about funny things that he always wanted to talk about. And I remember running into him at the Istanbul conference in Turkey, and he was surrounded with hundreds of people, and he gets up, comes to me, and we're having just silly conversations, and I thought, okay, that is the TA. That's someone that is not really, you know, really proud of himself just because he was a political leader, but someone who really cares about people and really cares about the friendships and what matters the most. And I also ran into him and Shamso in Nairobi 2 years ago on New Year's Eve at a restaurant, and he was again hosting people and having a really great time. But he got up, and when he saw me and my husband there, and introduced us to his group, and just to give you a sense of that's the kind of person he is. And no matter who he was with or whether he was busy or stressed out, he always has a way of really recognizing friends, appreciating you, and just making you really feel special. And to me, that's the kind of friend that we all want to have, someone who's consistent, predictable, and TA is very charming too, so that was always a plus. So I can go on and on and on about tell you how much I really love and appreciate TA, but that's not what we're really here. We're really here because I really want you to know that he means a lot to a lot of people. He means a lot to us as a community, he means a lot to me as a friend, and he means a lot to you as friends and supporters. TA left his comfortable life in America and his 6 children and his loving wife to contribute to rebuilding our country in Somalia. That's a sacrifice that he made. That is a sacrifice that I'm not willing to make. So you can see the difference in that. And I think it's a sacrifice that many of us are not willing to make either.
He was a valuable community leader, and he is a valuable community leader. He needs to know that we care about him. We need to tell the world, and we need to tell him and his family that we need him safe and we need him free. To me, it really doesn't matter whether we think he's guilty or not. As an American citizen, I expect my government to help me in times of need. I expect my community to help me in times of need. And I expect my government to make sure that justice is served. Thierry has been detained for months in a foreign country, and my understanding is that he has been, he's had at least 13 or 14 court appearances, yet he hasn't received due process. He has not been convicted of a crime. How is that justice? I really ask you to open up your hearts and mind and you realize that we all can make a mistake, and or we are all a mistake or error away from being in the same predicament that Thierry finds himself in today. Would you want your family, friends, community, and country to rally behind you? Or would you want them to ignore or pretend what's happening to you doesn't matter? I don't know about you, but when I watched Shams's Mogadishu Times interview, I was so moved to tears, not just because of the story she was telling, but by her bravery and determination to see Thierry as a free man. My heart aches for their 6 children who are worried and anxious to see their dad. And those of us who are parents can really appreciate what that really feels like. So what can we do? In America, we presume innocence until proven guilty. So we have to call our elected officials, especially US senators and House of Representatives, and ask them to expedite his proceedings. If we believe in his innocence strongly, we have to sign a petition. We can also call the Belgium Embassy in Chicago or visit if you can, and ask them to do something about that. And I think the group that organized this can tell you a little bit about how to do that. But please, whatever you do, do something. Let's bring closure to this. warrami doona waxyaabihii uu Thierry ka qabtay wadanka Soomaaliya intii uu joogay. Cabdi soo dhow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina qaaliga ah oo caawa halkan ku timaadeen asagoo ognahay wadada ay xun tahay wedarkuna qabowguna saaid yahay aad baan idinkaga mahad celinayaa inkastoo ahayd inaan hormariyana waxa mahadle Ilaahay noo suurto galiyay inaan caawa halkan isugu nimaadno inta ka bacdi walaalayaal waxa caawa la qoondeeyay sida uu sheegay Maxamuud inaan ka hadlo si kooban waxqabadkii uu ku laabtay Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Aadan Thierry waxaan rabaa inaan ku bilaabo sidaan kulli dhowr qodob baan u soo qaybshay Maxamed wuxuu ka mid ahaa community-ga Soomaaliyeed ee degan state Minnesota sidoo kale wuxuu ka mid ahaa community-ga ama jaaliyada Ximan iyo Xeeb ee degan North America wuxuu ka mid ahaa guddi ay leedahay jaaliyadu oo arrimaha jaaliyada ka shaqeeya Maxamed intii uu arintaas ka mid ahaa joogitaankiisii halkan wuxuu isku dayay inuu la xiriiro wadankii oo ay ka jirtay muddo badan adogeedeen inaysan ka jirin dawlad dhexe oo Soomaaliya dhibaatooyin badan ay ka jireen oo isbedel ah jamhada iyo magacyo badan ayagoo leh intaas ka bacdi Maxamed wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto wadankii wuxuuna intaanu dib wadanka ugu laaban uu bilaabay inuu meelo badan tago si arinta uu raba marka ay suurtagal uga noqoto inuu wadankii u aado wuxuu ka bilaabay shirarkiisa guddi uu ku jiray magaalada Minnesota waxay safar ku kala tageen Canada wadamo kamid ah Europe Africa iyo Carabta intaba markii la ogaaday inay laga maarmaan tahay baahida ka jirta deegaanka Ximan iyo Xeeb waxa la go'aamiyay guddi kay imaada jaaliyada ku nool dabada ee Ximan iyo Xeeb inay isugu yimaadaan wadanka Abu Dhabi oo Dubai whatever ergadii halkaas soo qayb gashay waxay ahayd 500 oo ergay
waxaana meeshaas lagu magacaabay in loo diro wadankii ay soo ogaadaan xaaladda dhabta oo ka jirta dad ka kooban 50 qof dadkaasi markii ay ogolaadeen inay wadankii dib u tagaan waxay ahayd inay ka baxaan Dubai Kenya Nairobi to Ximan iyo Xeeb Cadaado markii ay Nairobi yimaadeen ayna tahay inay baxaan maalintii dambe waxaa ka dhacay magaalada Cadaado dil aad u ahaa mid laga naxo waxaa lagu dilay dhowr iyo 20 qof magaalada dhexdeeda markii idaacaduhu ay sheegeen dadka dhintay magaaladiina niman jamhaduhu ay ku soo duuleen waxaa dhacday raggii loo qorsheeyay inay tagaan wadanka oo warbixinta soo celiyaan in walbaaba yireen anigu inaan ku dhinto ma rabo wadankii anigoo familkayga meel fiican oo nabadana ii degan yahay nololna haysta maxamed wuxuu ka mid ahaa 5 nin oo ku soo hartay go'aankoodii inay ku tagaan Ximan iyo Xeeb magaalada madaxdeeda Cadaado maxamed markii uu tagay Ximan iyo Xeeb waxa la ii sheegay inuu yaalay meedkii waxa ka jiray dhibaato colaad gaajo iyo abaaro iskaashaday oo dadku aad ugu liiteen Cabdullaahi markii uu halkaas tagay iyo ragii ay la socday waxay isku dayeen inay soo aruuriyaan dhibaatadii meeshaas ka jirtay si ay dib ugu soo celiyaan jaaliyada ku noolay dabadda si wax looga qabto maxamed Cabdullaahi warbixintu uu soo celiyo waxay ahayd baahidii meesha ka jirto asaasiga ahayd sida daawo cunto iyo biyo oo dadku u bahnaayeen waxa laga sameeyay kaamam dadka wixii xooluhu ka dhamaadeen lagu xareeyay na lagu quudin jiray si guud oo public ah inta la isku keenay meel inta wax lagu sameeyay qof walba wax la siin jiray inta marka xool u noolaayeenna loo sameeyay in biyo la gaarsiiyo meel ay joogeen taas markii lagu guuleystay xilliga abaartana laga baxay oo roob da'ay maxaa Cabdullaahi wuxuu bilaabay in uu isugu yeero guurtidii si looga baxo dhibkaas markaa jiray oo ahaa mid maamul la'aan ah guurtidii wuxuu u sheegay dhibkan inay uga bixi karaan in la helo maamul waxayna u sheegeen maamul annagu ma naqaan laakiin adaa noo sheegay noo qabo maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa ku abuurmay sidaas inuu maxamed Cabdullaahi ku qabto maamulkii sidaas maxamed Cabdullaahi markii uu ogaaday maamulkii inuu sameeyay guurtadiina isku raaceen wuxuu yiri maamul ma jiri karo haddii aanay jirin nabadi nabadda waxay u shaqaynaysaa sidan haddii aad odaga nabadoonka ahi wiilkiisa ka celin inuu wax dhaco inuu isbaara dhigto inuu wax dilo nabad laba gaari karo guurtidu waxay ku raaceen in nabad la gaaro ayna la shaqayn doonaan sidaas la mid ah maxaa Cabdullaahi wuxuu soo wacay jaaliyadii ku noolay dabadda una u sheegay sida suurtagal ay ku tahay in nabad la gaaro wuxuu u sheegay in nabad lagu gaari karo in guurtida loo qoro mushaar wiilasha intii magaalada Cadaado waxaa taalay sidii la sheegay 7 isbaaro anu si qaata ma qaanan 7 isbaaro iyo intii dhigatay iyo intii suurtagal ahayd in la soo xareeyo leeraadinkana waxa leeyahay mushaar waxaa tiin ciidan ka shaqeynaya dadkan waxa ay rabaan wuxuu la wadaagay jaaladii ku noolay dabadda in ay suurto galiyaan guurtida iyo ciidanka mushaarkooda inay bixiyaan taa waxaa ogolaaday jaaliyadii dabadda ku noolay markii ogolaatay wuxuu u sheegay ayagana inay leeyihiin mushaar odayaasha dhaqanka iyo dhalinyaradii oo laga dhigay ciidan nabad sugid ah
markaa ka bacdi markii intaa la helay waa sida ay ku gaartay ximan iyo xeeb inay noqoto meel nabad ah na waqtiyaasha u dambeeyay Soomaaliya marka la fiiriyo ahayd meeshii dadku in badan u aadi jireen ganacsigooda iyo nabadgelyadooda in badan inay waxooda dhigtaan ay u aadi jireen maxamed cabdulaahi markii uu suurto galiyay in nabadii ay sidaa salka ku dhigtay waxaa bilowday nolol aan ka jirin in badan oo Soomaaliya ah xilligaas ma jirin iskuul ma jirin caafimaad ma jirin cisbitaal ma jirin ma jirin dhismayaal iyo business isaga goosha ama export ha noqdo ama import ha noqdo ma jirin waxaa suurtagal noqotay oo maxamed cabdulaahi suurto galiyay markii nabad uu la helay inuu ka shaqeeyo maamul wanaag dadkana la baro waxay tahay maamul iyo sida looga faa'iidi karo xilligaas ayaa waxaa bilowday business ama dadkii inay dib ugu soo laabtaan kuwii dabada even ku noolaa ay dib ugu laabtaan kuwii dhaqaalaha haysto oo meelo kale ku noolaana ay yimaadaan maantay haddii markii ay dhacday maamul wanaagaasi waxyaalihii qabsoomay ayaa waxaan rabaa marka inaan wax yar ka xuso ma jirin maalintaas iskuul ayaan idhi maanta waxaa dhigata ardada ximan iyo xeeb in ka badan 25,000 oo arday oo isugu jira dugsi hoose dhexe iyo sare waxaa leedahay hal jaamacad oo hadda furan iyo mid furmi doonta samarkan sida naloo sheegay magaalada Cadaado oo aan lahayn cisbitaal waxay leedahay saddex cisbitaal oo mid private yahay especially dumarka ay yahay nabadgelyadu maalintii uu tagayay waxaa daily dhigi karay 45 qof ayaa dhimatay a day dhowr biloodna waxaa dhacda inaan qofna ku dhiman qof waqtigiisu dhiman inaan qof xabadna dilin cudurna dilin wax kalena dilin walaalayaal kuma soo koobi karo wax qabadka la gaaray intii uu maamulka hayay ximan iyo xeeb waxay leedahay international airport oo leh federal migration oo haddii aad ka tagto wadanka dabadiisa ka timaada ama Soomaaliya ha ama ahaanin intari lagu dhufanayo oo ah Somali federal government ay leedahay ayaa ku yaala maanta sidoo kale waxaa ku yaala way u qaadan waayay building lagu yiri wuxuu gaarayaa $500,000 inuu ku wali karo waa ila qabiyo laakiin sawirkiisa waa kan billiga sawirkiisii markii aan arkay iyo lacagta lagu qiimeeyay suurtagal waa ila noqon weydo waa billiga kaas wax badan ayaa qabsoomay oo runtii lagu faani karo taasuna waxay ku timid dadaalkiisii iyo leadershipkiisii maxaa cabdulaahi sidaas ayay waxay ku tahay qof kasta oo Soomaaliya iyo in alla intii taqaanayba qof lagu xasuusto inuu ahaa qof wax qabadkiisu yahay mid muuqda haddii ilaahay يعني قف كسر كل وقت بيقوله هاي لكن وقت كيسي كسر موجي وحقبض يوناك يوح الجودة ينكره وما سنتهين انتاز أيام حربا دي لهاي دمو إنا كسر قبل قبية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدنيالي مروين داديا وراءها صوماليات aad baad u mahadsantihiin aan guddigii waan ku jiray soo qaban qaabiyay laakiin waan u mahad celinayaa hawsha culus ay qabteen waxaan rabaa inaad ila saacbisaan walaalkay mascade oo hawshan runtii qayb weyn kale walaalkay mascade aad baad u mahadsantahay hawsha culus waayo
waxaan kaloo rabaa inaan acknowledge gareeyo ama aan soo dhaweeyo inkastoo hadda lagaga hormaray walaashay Samsa Abtidoon oo ah xaaskii Maxamed Aadan Tiicay oo nala joogta oo aan la qaybsanayno caawo oo aan ka dhidinayno caawo oo aan la dhibaatoonayno caawo dhibka haysta inkastoo afariisa dhibka soo gaaray aan anagu runtii hal habeen xataa aan la dhibaatoon karin laakiin caawa waxaan u muujinaynaa walaasheen inaan garabkeeda taaganahay inaan taageersanahay inaan wiil iyo hoo muxuu ahaa arrintan walaalkeen qabsatay aanu kaga hari doonin baan caawa qirayna haddaan nahay Somali Americans. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مركه هراء وحن سلامة يا ولا لها سجارة وحن سلامة يا ولا لها سوق شيء برامج كان قروح ضبضن وقلت له قالي اللي جور هذه حقه يا عدالة كيسك وخصية ولا الكنا محمد عبد الله تيعي وهذا مهتسنتين ولا لها سوق بنقابي انت اسكدي كل تيعي وحن كم دتك شخصيا يقانا دولة أمريكا مسج وحكو سعودة دولة الصومالية مثلنا شعب كصومالية ماشي جوكت مركو حاسوه سجلايو كوميونيتي هل كان جوجا مينيسوتا مسج كدولة دولة أمريكا صدق قالوا ككوريا كو أرتو جودهان دولة أمريكا وحن كعصنا ما دام وياه US citizen إن حقي ولها قف citizen ومال كحران إنسيس وأنت سو أنت ويدي سنينه وحكى بدل مو ويدي سنينه قانون كأمريكا وحو حق صينا يا قف كcitizen كأمريكا مركي لو حرق دول كيساهين حقوق جوني وليه حقوق الله إلى حقوق ده صنوحا مسؤول أو رعاية خاصة وسمينا يو وزارة رماه الدبلة أمريكا وحن كعصنا أمريكا سدح وحيالات كو TI كيس كيسة إن الدبقال كسميان أو أبديت جوكتها إسيان فمل كيسة وكو لبا إن بريشر إساران دولة بلجيم أو لبا متكود إسميان أما إن official charge إذن رسمي إكوسو أوغان TI أما إن سيدايان بريشر كاسو إن دولة أمريكا كإسميان سدح facilitation ومعناها هذا لو جيده إن دولة أمريكا كإفضوديسو قريقانديس أما دتك كيس كيسا كشقيانايو أما سنتريس كجرا هول فضودين إني أصلا يسوي مركي TI دنكيس وح لوجو بعضه سدح راسي أيان عصنا أنا as a community Minnesota أي هالكان شوله. In English, we are demanding as a Somali community in Minnesota 3 things from the U.S. government. Number one, we want them as a government to update the case of Muhammad Abdullahi Ti'i and give us more information, especially for his family. And that update, we request the government to go to the family in a manner that's appropriate to the system of the U.S. government and the need of the family. Number two, we request the government of the United States to put the pressure on the government of the Belgium. Either the Belgian government must charge TI or release him from the jail. Number three, to facilitate all informations related to Muhammad Abdullahi case, whether it is from the lawyers of the TI or the US senators or any other pertinent offices that is working the case of Muhammad Abdullahi TI. For the Somali government, دولة الصومالية محن كربنا. سأوصل TI مركي وجود ما يسحقوا مجا senior political advisor وزارة أرمها جودها يكون مجا una yahay ilaa hadda marka dawladda Soomaaliya waxa saaran laba mas'uuliyad ah muwaadin Soomaali ah oo lagu haysta xabsi kamid ah xabsiyada dibadda oo meel aan Soomaali ahayn oo la rabo inay u gurmadaan
iyo waajib labaad oo ah official senior official oo Soomaali oo diplomat ah oo xaqiisa la rabo in dawladda ay ilaaliso idan marka dawladda Soomaaliya waxa saaran saddex mas'uuliyadana kayska ticay inay ka war hayaan si joogto ah isla markaasna u wargeliyaan familkiisa meesha uu maray laba pressure dawladnimo iyo iyadoo markaas ka duulayo inuu ka mid yahay saraakiisha sarsare ee dawladda inay pressure saarto dawladda Belgium-ka ah ama inay dacwad official ay ku soo ogaan ama inay sii daayaan ticay imida ugu dambayso dawladda Soomaaliya inay fududeyso wax ala wixii laga baahan yahay as a dawladnimo markay ticay looyadiisa ama dadka kayskiisa ku jira ama officialska Mareykanka ee la xiriiraan dawladda Soomaaliya intaasan ka rabnaa shacabka Soomaaliya community Soomaaliya waxaan ka rabnaa marka reer Minnesota iyo shacabka guud ahaan qofka muslimka sidiisaba waa qof xaq doon ah cadaalad doon ah anaga tafaasiish iyo kayska hoose ma ogin sida saaxiibkay qaban qaabiyaha shirku uu sheegay anaga waxaan weydiisanaynaa waa cadaalad marka hadda waxaan rabaa marka inaan cadeeyno halkan in ticay uu xirnaado intaasoo muddo ah oo aan la charge garin aan la soo eedeynin rasmiyan in cadaalad daro tahay marka waxaan rabnaa we as a Somali community our voices our support goes to the family of ticay first and we tell whether the American government or the Somali government or the world international community, especially the Belgian government, that it is injustice that ticay is sitting in the jail without charges.